kulankan oo ahaa kulan ay soo qaban qaabisay Wasaarda Arimaha Gudaha dowladda federaalka Soomaaliya qaybna ay ka ahaayeen odayaasha dhaqanka ee labada deegaan Tawfiiq iyo Afbarwaaqo oo dhawaan halkaas dirir ay ku dhexmartay iyo waliba sidoo kale odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa sidoo kale goobta ku sugnaa maamulka degmada Gaalkacyo iyo kan gobolka Mudug ugu horeyn waxa goobta si wada jir uga hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo iyo waliba gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxal kulankan wuxuu qorsheeyaa xoojinta nabadii ka dhacday Afbarwaaqo iyo Tawfiiq labadii beelood oo walaalaha ahaa oo halkaas ku diriray in la taageero oo nabadda la xoojiyo lagana shaqeeyo sidii nabad waarta loo gaari lahaa heshiiskaas oo noqon lahaa heshiis dhaxgal ah oo shaqeeya aad iyo aad ay farxad ugu tahay in colaadii muddo dheer socotay xal laga gaaro inta kadib ujeedada ay isku nimid meeshan ay ku qoran tahay waxa weeye inaan taageerno walaalihii ku dagaalay magaalooyinka Tawfiiq iyo Afbarwaaqo nabadii ay qaateen inaan wada taageerno dhamaanteen oo nabad dhaxalgal ah oo ay ku heshiyeen oo aan go'aan ku soo wada qaateen weeye waa wax muddo dhowr iyo 10 maalmood ah loo fadhiyay haday noqoto wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidanka dhulka haday noqoto wasaaradda arrimaha gudaha haday noqoto oday dhaqameedyada labada dhinac ka soo jeeda nabadda u xilsaaran gobolka Mudug maamulka gobolada Mudug dhammaan waxaanu taageersanahay inay noqoto nabadaas nabad waarta oo dhaxalgala odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa ayaguna dhankooda ka hadlay waxay ugu baaqeen odayaasha deegaanada Tawfiiq iyo Afbarwaaqo in ay xoojiyaan nabadda haatan ka jira deegaanadaasi waxaan bogaadinayaa dadka heshiiska degdega ka gaaray oo qaatay inay nabad ku bedelaan foolxumadii dhacaysay aad bay u mahadsan yihiin waana ku taageeraynaa waxa ay nooga baahdaana waa ku caawinaynaa oo nabadda lagaga shaqeynayo waana bogaadinaynaa haddii alla idmo gogashii Afbarwaaqo laga dhigay marka ay gabagabowdo tii ku xigtay baan dhigaynaa haddii alla idmo oo laga wada hadlayo cid kastana inay saas oo kale u dhigtaan rajaynayaa waxaan codsanayaa nabadda Soomaaliya inta badan siyaasadda xogaa la isku khilaafaa qoladii siyaasadda isku khilaafta xitaa waxay diideen ceelka in laga cababiyo oo dadka la waraabiyo marka waxaan codsanaynaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed maamul goboleedyada dawladda federaalka nabadda dhanka kale isla goobta waxa ka hadlay odayaasha labada deegaan Tawfiiq iyo Afbarwaaqo oo ayagu goobjoog ka ah kulankan waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in nabad waarta labadaas deegaan ay ka dhaxaloosanto ayagana intaasaan ugu ducaynahay midda kale Afbarwaaqo iyo Tawfiiq ma ahan waxaan waa laba tuulo waxaan u heshiinay Saleebaan Cabdalle iyo magac la yiraahdo reer Nabcaali saasan u heshiinay raggi saxiixana waa nahay saasan ku heshiinay qodobada maqleysayna waa ku heshiinay raggi saxiixayaalka ka mid baanahay odayaasha ka mid baanahay ragna waa ku ognahay dawladana waxaan uga dhignay wixii adima ahayn dawladdu qabato shaqaaqadii iyo colaadii iyo dhibaatadii halka ka socotay oo ka dhacday oo in badan haatan meel wanaagsan oo meel khayr ah oo iftiin khayr ah u muuqata anagu sidii lagu heshiiyay ragii iga horeeyay odayaasha ahaa ka hadlay waxa ka hadlay agaasimaha anagu heshiiskaas waxaanu diyaar u nahay oo taabagelinayna oo aanu rabnaa inaanu ku dhaqanno ugu dambeyntiina waxa munaasabada soo xiray Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed oo sheegay in nabadda haatan ka jira deegaanada Tawfiiq iyo Afbarwaaqo ay tahay wax lagu farxo sidoo kalena ugu baaqay odayaasha labada deegaan in ay xoojiyaan nabadaasi waxaan rabaa halkaan inaan mahadcelin iyo bogaadin labadaba ka siiyo marka kalena u tacsiyeeyo dadkii Soomaaliyeed oo dhibaatadu gaartay waalidiintii ilmahoodu lacdeen iyo waalidiintii laftigoodu wax gaareen intii dhimat samir iimaan Allah ka siiyo intii dhimatayna
ilaahay ha u naxariisto inta jirana oo dhaawacantana allaha caafiyo waxaan rabaa labada beelood oo saaka gooshan ku astaysan oo reer Nabcaale iyo Saleemaan Cabdalle oo ku heshiiyey deegaanada la sheegay Tawfiiq iyo Afar Waaqo waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ugana bogaadiyo wadnaha ay isticmaaleen waxaan dhici karaa dadnimo iyo raginimo iyo haddii alla ku ma ilaah ka cabsi iyo wadna inay isticmaaleen aad iyo aad u qiimo badan dhibaatada dhacday oo intanan qof arkay iyo qof maqlay laga yaabo inay jiraan inay inta dul istaagaan ogolaadaan inay nabad ku bedeshaan oo ka qaataan ayaan rabaa inaan aad iyo aad u bogaadiyo maxamed muxidiin saxan soxo galmudug TV gaalkacyo